ciidanka booliiska gobolka Togdheer oo kaashanaya ciidamada militariga ayaa gacanta ku soo dhigay 19 maxbuus iyo 3 gaari oo ku eedeysan dilka dhacay deegaanka Gumburlibaax oo ka tirsan gobolka Togdheer. Taliyaha ciidanka booliiska gobolka Togdheer Axmed Maxamed Guutaale ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkan lagu soo qabtay eedeysanayaashii. halkan mahad uga soo jeedinaya warin Ilaahay baa mahad leh. marnabaad waxaan u mahadnaqayaa ciidanka booliiska gobolka Togdheer iyo generaalka ciidanka booliiska oo runtii hawshan isaga laftigiisu qayb ka ah nagu hagayay qaybtiisa ka qaatay oo nagu maamulayay hawlgalkan waxaan oran karaa 70% gacantaan ku haynaa labadii gaari ee ay wateen iyo gaari isaguna taakula ahaa saddexda gaari horta gacantaan ku haynaa 19 maxbuusna gacantaan ku haynaa oo raggii hogaaminayay hawsha odayaasha leadershipka ka ah ay ku jiraan cid allaale iyo ciddii kale ee hawshaasi nala gashana ee baaristu ragaanu bartilmaameed nooyina waa jiraan oo aanu hadda aanan gacanta ku hayn laakiin 75% hawshii gacantaan ku haynaa. maayarka degmada Burco Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf Muraad xildhibaan Siciid Raage iyo qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Togdheer ayaa bogaadiyay tallaabadan lagu soo qabtay eedeysanayaashani iyagoo sidoo kale u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaatay howlgalkan lagu soo qabanayay eedeysanayaashani. ayo xalito ciidanka bilayska iyo koofiyada cusub ay ku jireen iyo annaguba iyo odayaasha marka deegaanku ay ku jireen sidii wax looga qaban lahaa shaqaaqadii ka dhacday Gumburlibaax. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ku mahadsan raggii falka geystay iyo baabuurtii ay ku geysteen waa la hayaa raggii falka geystayna intii badneed waa la hayaa wax yar baa dhiman waanu ku daba jirnaa ciddii gacan siisay iyo ciddii iskaashi siisay intaana waan ku daba jirnaa waana la soo qabanaya biidillah. dadweynaha shacabkuna aad bay nolol shaqeeyeen xuqaashi iyo odayaashu waana mahadsan yihiin aad bay ciidamada booliisku ilaa xalay shaqeeyeen aan raahdo ciidamada qaranka militariga koofiyada casta ninna baxsan maayo intuu sameeyo wax aanu xaq u lahayn oo dulmi iyo xaq darro iyo sharci darro intuu sameeyo iska baxsan maayo way soo dhamaatay waqtigii qofku intuu wax sameeyo uu reer ama koox dabada gelin jiray ku baxsan jiray inta hadhina biidin waan soo qabanayna sharcigana waa la horkeenaya. halkan u sheegayna oo aanu dhacdadii ka dhacday deegaanka Gumburlibaax halkaas oo nin ku dhintay dilkiina ayna gacan naga siiyeen ciidamada amniga gacan ku dhiglayaashii intoodii badneedna waa la hayaa qaarna waa lagu daba jiraa. waxaan halkan ugu mahadnaqaynaa ciidanka qaranka sida laxaada leh ay gacan buuxan nooga siiyeen qaalahan waxa weeyaan waanu la shaqaynaynaa meel allaaliye meeshii dadka falka geystay ay galeenna si gacan buuxda ayaanu markaa kala shaqaynaynaa ciidamada amniga taliyaha qaranka gudoomiyaha maayarka dhammaan amniga waan ku garab taaganahay hawsha. halkan magaaladan geedihaan ayaanu joognaa falkii ka dhacay magaalada la yiraahdo Gumburlibaax si adag ayaa looga howlgalay. halkan waxaan uga mahad celinaynaa maayarka taliyaha qaybta saraakiisha ciidanka kuwa qaranka iyo kuwa bilayska sida adag ay noogala shaqeeyeen. waxaan u malaynayaa dadku deendhahooda waxbay ku arkayaan militariga iyo bilayska iyo maamulka dhammaantii gobolku sida uga qayb qaatay ee dadka gacan bira ugu qabtay. Soomaalidu waxay ku mahmaadaan oo kale ay oran jirtay ku quuso quraanjo. waxaanu leenahay dadka kibraya ha ku quus qaateen waxa haday ka kaaftoomi waayaan dhibaatooyinka noocaas ay Khaliil Barrawraan shabakada Burco online magaalada Burco.